It's not how long you perform in nolosha. It's not how long you perform in maaha. How long you look in perfections maaha. That's not what it is. It's how long you perfected waxa aad qabanayso. Perfectingka ama waxa aad qabanayso markaas ayaga in aad hagaajiso qaybta kuugu fiican aad isleedahay maanta intaana ugu fiican oo hagaajin karaa bay taa arrintaas. And that's waxa habitka create gareeya ama dabciga habitka create gareeya inuu noqdo hor socodkaaga. saddexdan aan kula wadaagi doono wiigani waxay kugu kaalmayn doonaan inaad guul ka gaarto goolasha aad nolosha ka leedahay. kan ugu horeysay waxaa la yidhahdaa the first one saddexdan ugu horeysa waxaa la dhahaa walk slowly but never backward. in aad tartiib u socoto laakiin marna aysan tilaabadaadu dib u dhicin. saad u samayn lahayd waxaan kula wadaagi doonaa saddex qodob haddii rabbi raalli ka dhow. qodobka labaad waa sharciga la yidhaahdo the law of least effect. sida waxa aad qabanayso ay u noqon lahaayeen wax waxtar leh oo effect leh oo wax nooxa ay tarayaan ama waxa ay qabanayaan noloshaada wax ka bedeli doona. kan ugu dambeeyay on weekend kula wadaagi doona waxaa la yidhaahdaa sidaad u joojin lahayd how to stop procrastination. sidaad u joojin lahayd laba qalbiyeynta iyo dib u dhigashada iyo galgalashada nolosha. haddaba biyahaaga soo qaado, shahaaga soo qaado, u diyaar garow inaad nolosha qalbi ahaan iyo maskax ahaan wax u fahantahay si aad wadada aad qaadanaysa ama journeyga aad ku jirtaay uu kugu sahlanaado. haddaba cashirkeena maanta ugu horeeya the first session-keena waxaan qaadanaynaa walk slowly but never backward. sidaa tartiib nolosha ugu socon lahayd laakiin aadan marnaba aysan dibadhac kuugu imaan lahayn. It's okay nolosha qofka inuu sambirraxoodo. It's okay nolosha inaad qararka qaarkood aad dareentay inaad dibadhac u tahay because saan hore uga soo hadalnay ibni aadamku waxa ilaahay ka abuuray degdeg. waxa aan jecelnahay in aan meelaha aan u socono aan si degdega ku tagnaay laakiin ma dhacdaay. waa normal in aad la qabsataay oo aad fahantaay tartiib socodku inuu ka fiican yahay mararka qaarkood directionka ama meesha qaldanad u socotaay. sidaas awgeed waxay arrintaanu kugu kaalmaynaysaa inaad fahantaay number one inaad fahantaay change inaad wax bedeshaay it's not an easy. ma ahan wax fudud. waxaanad u baahan tahay to learn the practice not to plan. inaad fahantaay nolosha practice ee kaaga baahan tahay inaad tijaabisaay not only inaad nolosha inta meel fadhiisataa dhahdaa waan qorsheynayaa waan plan gareynayaa ma shaqaysaay. practice makes what? in badanoo idinka in ka mida waxaa leedihiin practice makes perfect. no, practice doesn't make no perfect. perfections and only perfect is Allah subhanahu wa ta'ala. practice makes improvements. the more aad nolosha practice garaysaay the more aad isku daydaa waxa aad qabanaysaa inaad wax ka bedeshaay the more aad improve garaynaysaa nolosha because aniga iyo adiga iyo cid kale perfect ma noqon karto ama perfectionist ma gaari karaan. Allah subhanahu wa ta'ala waa perfect. waxaan arrintaa u baahan tahay repetitions inaad ku celiso because the habit ka wanaagsan ama dabciga wanaagsani waxa uu ku dhismaa ama saldhig u noqdaay repetitionka ama ku celceliska ayaa saldhig u noqda. that is number one. haddaad si fiican u fahantahay waxay kuu sheegaysaa ama kuu samaynaysaa walk slowly but never backward inay kugu sahashaay inaad fahantahay. what is number two? waxaad focus to actions not the motions. in badanoo dadka ka mid ahi waxa ay ku jiraan nolosha motions diyaargarowga qisadan aan kaaga sheekeeyay when I do the saleska markaan samayn jiray waxa laga yaabaa saleska qalimada diyaarsanaysaa listing of the people kaad waxaysaa diyaarsanaysaa scripts ka diyaarsanaysaa waxaad diyaarsanaysaa all the things aad u baahan tahay all those things are motions. dad baad waxaysaa motion waay. the only result waa markaad inta action qaataay in action square result aad ka heshaa. actionkii uu u wareegay ama uu equal la noqdaa ama uu ku siiyaa return of inaad result hesay. so in badanoo dadka ka mid a motion ay ku jiraan ama diyaargarow ay ku jiraan laakiin nolosha diyaargarow maaha. waa tilaabo qaad waaye aad kaga dhabaynayso ama aad kaga socodsiinayso waxa aad rabto inaad nolosha qabataan. remember kun steps
1000 steps begin in what? One step. haddii 1000 steps hal step laga jaraay waa 99 waa 999 steps waay. That means one step baad ka jirta. laakiin maanta oo dhan u diyaargarowga safarkaaga nololeed haddaad ku jirtaay waxaad ku jirtaay motion baad ku jirtaay wax qabad kuma jirtid. u diyaargarow nolosha inaad wax ka qabataay. Number 3 oo ugu dambaysa qaybtan, it's not how long you perform in nolosha. It's not how long you perform in maaha. How long you look in perfections maaha. That's not what it is. It's how long you perfected waxa aad qabanayso. Perfectingka ama waxa aad qabanayso markaas ayaga in aad hagaajiso qaybta kuugu fiican aad isleedahay maanta intaana ugu fiican oo hagaajin karaa bay taa arrintaas. And that's waxa habitka create gareeya ama dabciga habitka create gareeya inuu noqdo hore socodkaaga. So number one things oo aan maanta ku fahansiinayo waxa waaye ama number one thing oo aad u baahan tahay maanta inaad fahantahay in aadan tartiib socod samaynin ee aad samaysaa hore socod. inaad uga baahan tahay 3 qodob inaad uga baahan tahay. qodobyadaas inaad uga baahan tahay nolosha in aad choose garayso in aad wax practice garaysaay oo aad practice samaysaay adigoo aan mar walba ku mashquulaynin inaad nolosha only practice inaad tilaabo qaadaay laakiin aadan nolosha ku habsaamin taabaynta ama ma aragtay in lagu taakuleeyo ama aadan diyaar ku ahayn. Ana number 3 in aad samaysaay nolosha inaadan ka raadinin I am performing inaad wax qabato inaysan nolosha ahayn ee inay tahay waxa aad qabatay inay wax soo saari karaan hama xumaadaan. So let me share with you the second session, the law of least effect. inaad nolosha samaysaay waxa aad qabanaysa inay ahaadaan wax waxtar leh waxtarkooduna ay tayo dheer leedahay. ama waxa aad qabanaysaay ka labaad in aad leedahay waxtar muuqda oo wax samaysa. haddaba iyadana 3 waxyaalood aan kula wadaagi doonaa. Number 1 aan kula wadaagay qaybtan labaad, reduce the frictions with the bad habits. Bad habits-ka waxyaabaha keena ee dhadhanka u sameeyay oo dhan meesha nolosha ka saar. Environment-gaaga saan hore uga soo shaqeynay ama u soo sheegnay ha ahaato mid u diyaarsan wax qabadkaaga. dabcigaaga iyo dabeecadaadu ha ahaadeen qof horumar leh. waxa aad samaynayso ha ahaadaan wax sax ah oo right ah oo ku hogaaminaya ama kugu hageeya nolosha dhanka wanaagsan. Remember horaan uga soo hadalnay dabeecadaha xuni waa waxyaabaha kalifaaya inay lugaha ka xiraan. ha yeelin dabciga xuni inuu lugaha ka xiro. waxaad samaysaa dabciyada wanaagsan oo cunto fiican inaad cunto, exercise-ka inaad aado, salaada waqtiga qabowga inaad u kacdo, salaada challenge-ga qabta oo salaada subax oo maalmaha qaarkood laga yaabo 2 saacadood cishaha adoo tukaday salaada subax in la tukanayo haddana inaad u diyaar garowdo. all those things waxaad u baahan tahay in aad dabcigaaga ka dhigataay mid kuu sahlaya ama kuu sameynaya inaad yeesho wixii kaa hortaaganna iska wareejiyo. make the future actions-ka aad samayn lahayd oo dabciyadaas kuu sahli lahaa easy for you. haddaad rabto inaad gym aado, dharka gymka diyaarso. qadada berri aad shaqada u qaadan lahayd sii diyaarso. waxa aad qaban lahayd qodobo ka sii qoro. hadda tusaale ahaan oo kale I do speeches of meelo waaweyn aan speech ka sameeyaa. speechkayga oo dhan wuxuu ku samaysan yahay weegaan aan samaynayo 3 qodob. only 3 points. ma u baahni in other things inaan ka fakiro. waxaan u baahanahay the 3 stones inaan ka fakiro. those 3 stones kaas ama 3daas dhagax ayaan waxaan u samaynayaa shamiito iyo ciid iyo shub u samaynayo oo aan sharaxaya. waa inaad samayso waaye waxa aad samaynayso make your future actions-kaaga inaad easy ka dhigataa. in badan in ka badan markaan speech-ka ka hadlayno oo ma hadli karo, sida loo hadla ma garanayo, dadka haddaan hor istaago iga lumay because techniques-kaada fahmayn waxaas ka dhigay. gym-ka dadka sameeyay waxay yaqaanaan techniques-ka yaqaanaan qofka uu maaragtay weight-ka ku lose gareynay. waa inaad fahansan tahay waxa aad qabanayso techniques-ka ama waxyaabaha ku sahlaya steps-kaas inaad fahansan tahay oo ah I will make the future action-ka aan samayn lahaa si uu xiiso iyo dhadhan iyo macaan iigu yeesho, si aan ugu dareemo inaan samayn karo, si uu iigu sahlanaado, si aanan ugu sirminin inaanan samaynin. waxaan u baahnaa inaan ka dhigtaa inaan easy steps samaysaa. tusaale ahaan oo kale marba waxaan soo kici jiray waqti aad u horeeya si aan naftayda ugu sasabo ba waxaan dhihi jiray oo easy steps you will have the best cafe in tomorrow morning markaa kacdo. It will open your eyes. kafeegayga
عرفتيسا أما شديديسا أما ما عرفتي صبح أنت أنا كعين used to make me that happy in 3 in the morning and hurdada ka kaco. So you make something steps ka in uziya hadday dhar gym tahay hadday exercising tahay hadday cafe tahay hadday cibaado tahay inaad steps ka samaysato. And the last, not only inaad steps ka samaysatay, make that to satisfaction sidaad ka hesho in aad ka dareen tahay 3 o'clock inaad u soo kacdo cibaado marka dadku kala hurdo 6 o'clock inaad orod samayso jirkaaga ka shaqaysaay inaad book akhrisaay oo aad ugu taragalaysa maskaxdaada inaad wax ku dartaa endiga ayadoo aysan dad badan samaynin inaad ogaataay you are the 2% oo waxa sameynay so that dareenkaas aad dareemayso qalbigaaga ku qanacsan yahay inaad dhahdaay waxaan sameynayaa wax aysan dadka kala samaynin laakiin sameynaya nolosheeda horumar ka sameey haddaba aan soo gaabiyo and make a short and inshallah ta'ala making sense ku sameynay nolosha ka sameey sharciga la yiraahdo inaad meel dheer ka tagtaay waxa aad qabanayso sharcigaas oo sameynaya reduce the frictionka ama waxyaabaha keeni karaay inay ku diidaan inaad wanaagga sameysay meel iska dhig ka shaqee environmentigaaga ka shaqee dabcigaaga ka shaqee dareenkaaga ka shaqee dadnimadaada ka shaqee waxyaabaha aad u baahan tahay shakhsinimadaada inaad ka shaqeysaa make future actionkaaga inuu kuu sameeyo ama uu kuu noqdo mid easy ku ah oo tilaabada aad qaadanaysa aad is hordhigi kartahay whatever ay tahay hadday tahay inaad kafe u yeerato haddii ay tahay inaad adkaar akhrisato hadday tahay aayad quraan inay alarmi kugu kiciso jeceshahay haddii ay tahay lacagta aad samayn doonto iyo waxa aad ku gadan doonto make sure that inay kuu noqoto easy stepska aad nolosha uga horgeli lahayd iyo last one in this topic oo aad samayn lahayd make that good thingskaas aad samaynayso inaad dareento wax wanaagsan oo fiican oo kuu sahlaya inaad samaysayo and that's number 2 the last one aan rabaa marka inaan kula wadaago oo aan aad excited uga ahay ama aan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan u soo qaatay buugtan Axmed Moodey uu qoray oo lawyer ah uu qoray nin la yiraahdo Willie Julie buugiisa oo uu qoray 7 habits for highly effective people oo uu qoray Brent Tracer oo hadda aan ma aragtay iyo agolin oo la yiraahdo Eat That Frogs oo uu qoray the atomic habitska oo aan insha Allah ta'ala topigadan qayb kamid ah aan ka soo qaadanay all those waxay ka hadlaan wax la yiraahdo waxa ugu dhibka badan oo aan jeclahay inaan nolosha uga gudubtaa oo la yiraahdo procrastinations sidaabaad uga gudbi kartaa si gaaban inaan kuu tusaay laba qalbiyeynta ama dib u noqnoqoshada in aad fahantaay si gaaban inaad uga gudubtaa oo aan ahayn educational but communicational in aanan ku educate garaynin oo aanan maskaxda ka wareerinin laakiin aan kala hadlo ama aan kula communicate garayo si simple ah oo aad fahmi kartaa sida ugu fiican aad fahmi kartaa waa waxa la yiraahdo 2 minutes rule si aad procrastinationka meel iskaga saartay waxaad isticmaashaa 2 minutes rules ka 2 minutes rule-ku wuxuu u shaqeeyaa ama u sameeyaa sidaan ayada number 1 waxaad u baahan tahay inaad fahantahay maskaxda qofka bilow aadanka ah is like sida ciiriyaamadii oo kale is like a frog waa qiiq ba maskaxda ku shidan that choice-kaas aad samaynaysaa maskaxdaadu wuxuu samaynaysaa qiiq haddaba maskaxdaadu maxay u samaysantaa why people procrastination ka u sameeyaan because maskaxdaada programkeeda ama qofnimadeeda ugu fiican ay kugu xiran tahay ama GPS-keeda ay tahay waxa ay saameyn ku leedahay nabadgelyadaada anytime or 2 decisions uu ku yimaado maskaxdaada shaqo kuma leh horumarkaaga maskaxdaada waxay shaqo ku leedahay nabadgelyadaada haddii laba wado inaad qaadato ay tahay oo saako kale aniga igu dhacday midna 45 daqiiqo aan lugaynayo midna 30 daqiiqo aan lugaynayo maskaxdayda automatically waxay siinaysaa midda 30 daqiiqo qaado why because waxay iga ilaalinaysaa buuraha ay wadadaas leedahay fatiga ka imaanaya xanuunka ay leedahay waxay leedahay 30 daqiiqo qaado why because the safety ku xiran haddii qof middo kugula soo ordo maskaxdaadu isku dhig kuma dhahayso the same way ay ku leedahay either carar ama aad freeze u noqonayso ama aad u dagaalamayso any decision aad samaynayso maskaxdaadu waxay ku xiran tahay samayso haddana communication kan kala aan ku siiyo right now waxaad igu daawanaysaa indhahaas waxaa loogu talagalay in wax lagu arko alla wuxuu kuu siiyey subxaanahu wa tacaala wax ku aragto laakiin choice-ka yaa iska leh inaad ama xumaan ku aragto ama wanaag ku aragto adaa iska leh maskaxdaada marka alla wuxuu kuu siiyey inay ku ilaaliso oo kaa ilaaliso qatarada kaa ilaaliso laakiin adaad waxaad u baahan tahay qatarada aad u diyaar garoobayso inaad u sheegto aad dhahdo do not procrastinate
this is a good decisions aan u baahna inaan sameeyo. And you know maskaxda marka haddana difficulty ay gaarayso oo heerka successka ugu dhibka badan ay gaarto waa marka laba decision ama laba go'aan ay kor yaalaan. Mid waa good decision, waa go'aan fiican, midna waa great decision, waa go'aan ka sii fiican. sida 45 daqiiqo buura inaad korto iyo 30 daqiiqo oo hoobada inaad martaay maskaxdaada hoobadkay kula bartaa inaad lugaysaa wax fiican waay wali arrin fiican waay laakiin 45 daqiiqo oo hiil markaad ku lugaysaay waxaad muscleska iyo muruqaaga iyo naftaadii ku challenge garaynaysaa guusha laakiin maskaxdu waxay ku leedahay ogow maalin 3 maalmood ka hor muruq baa ku booday baaskiil baa intaad wado saas kula noqday saasa sameeynin doos aada waxa keenaya maskaxdaada in ciiriyama ama frog ay gasho waad u baahan tahay inaad ka saartay buugga ninka la yiraahdo aan hadda meeshaan oolin oo Brent Tracer wuxuu u bixiyay eat that frog inaad cuntaay frog inaad cuntaa ama aad cuntaa bahalka la yiraahdo en maaragtay en bahalka raha inaad cuntaa buu u bixiyay what is the three choices aad sameynayso number 1 three choices ka aad sameynayso waxay make the choice aad rabto inaad nolosha ka samayso within first 2 minutes ka kugu horeeya when you get two choices make the first choice. How about if the first choice aan u baahnaay consultant Farhan consultant baa ka hadashay mentorship baa ka hadashay it has nothing to do I'll tell you how to do it. You decide in two schools in aado two business in samaysato two things in nolosha ka samayso two ways in nolosha u lugayso number 1 make the decision in yourself compare it to waxa adiga dan kuugu jirto marka decision-ka adiga samayso get consultant waxaad dhahdaa labadan arrimood ay hortaala midkaana aniga igula haboon wuxuuna igula haboon yahay A iyo B iyo C iyo D waxaan u baahnaa inaan kan sameeyaa then maskaxdaadu waxay sameynaysaa kan adiga markaas kugu adag ama kugu fiican inaad u choose galayso because benefit-ka laakiin inta badan dadku maxay dhahaan oo procrastination-ka ugu badan number 1 haday tilaabo qaadi karaan tilaabo ma qaadaan haddii ay sameyn karaan inay planning sameeyaan oo hore u dhaqaaqaan ma sameeyaan why because wuxuu ku leeyahay qofkii wallahi inaan halkaas aadaay ma kala oga midka aan sameyn karo ma ogi that is maskaxdaadu yaan kala tashta marka hore tasha adigu markaad adigu tashato waxaad u baahan tahay inaad qof la tashato haddaadan adigu tala haysanin even qofka kuu sameynaya mentorship-ka ma garan karo so procrastination-ka ugu horeeya make the choice in the first then the second is standardized before you optimized waxa option-kaagu yahay standard nololeed ka dhigo waxaad ka dhigataa wax lagugu yaqaan socodka ma lagugu yaqaan hadalka ma lagugu yaqaan amniga ma lagugu yaqaan cleaning ma lagugu yaqaan standard ka dhigo noloshaada lagugu yaqaan si ay kugu noqoto option ku fudud oo maskaxdaada ka yareynaya inay freeze noqoto ama ay ciiriyamo ama fog ay ku galisaay oo aad mugdi gashay standard ka dhigo haddii aad rabto reader inaad noqoto hadhihin maalmaha qaarkood aan akhriya I'm a reader procrastination is over haddaad sigaar cabbi jirtay I'm not a smoker anymore no I'm not a smoker remember maskaxdaada waay waxa wax kugu soo celinaya la dagaalamayso it's not outside forces it's you and your self image and you standardkaaga adiga waay adaa waxa u baahan tahay for you inaad ka fahantahay standardka nolosha aad ka samaysanayso oo aad ka dhiganaysa labelka uu yahay si uusan procrastination-ka dib kugu soo noqon and the last ma samayn karti you cannot improve habit-ka nolosha kama samayn karti if that habit-ka aad samaynaysa ama aad rabto inaad samayso uusan ahayn mid excessive oo jira oo aad garanayso steps-ka saan hore uga soo hadal steps-ka aad qaadayso tilaabada aad qaadayso meesha aad u marayso remember the labada wado I know this wado is a 30 minutes downhill way I know this wado is a 45 minutes it's uphill way I know the both wado haddaan wadooyinka aqoonin maskaxdeedu ma shaqayn karto waa inaad garan kartaa option-ka aad samaynaysaa okay am I going the downhill easy dadka inta badan ay qaataan or am I going the upper hill uphills-ka baan qaadana xanuunka ma mara murqaha ma sameeyna the same things ma waxbaan akhrinayaa dan marka wax akhrinayso ma hal page aan akhrina ma book been aan akhrina boogan wax ii tarinaan akhrina maxaan sameeyna ma adkaartaan akhrisana mise excuse-ka hurda haysaasa choice waa inaad garan kartaa labada choice iyo waxa ay kaliya kan ka horeysa waa inaad standardka noloshaada garan kartaa number 3 ama 1ka aan ka bilownina waa inaad garan kartaa every decision need 2 minutes before aysan maskaxdaadu noqon freeze because aysan maskaxdaadu noqonin hawsha ugu badan the last one is how to stop the procrastination inaad joojisaa ama laba qalbiyan joojisaa wax weyn kaaga ma baahna number 1 waxay kaaga baahan tahay ku
fahan maskaxdaadu waxay u samaysan tahay inay adiga ku ilaalisaan laakiin waa inaad u sheegtaa maskaxdaada waxyaabaha aan rabo inaan ku guulaystay guushu kor bay jirtaa saas awgeed waxyaabaha aan ku guulaysanayo anaa go'aan gaaraya adiga iima gaaraysid number 1 inaad maskaxdaada saa u sheegto number 2 waa inaad dhihi kartaa waay waxa aan rabo inaan go'aan ka gaarayo marka ay maskaxdeeda soo galaan meel baan fariisanaa anaa qoranayo waxa ay la tahay go'aankayga xataa intaan cid kale la wadaagin cidaan la wadaagaan rabaa talaan rabaa inaan helo waxaasoo dhan waa maaragtay shimbirayo heesa kata waxba kama shaqeyn sit down make your decisions then after that look for consultations look talo raadi laakiin adiga write it down wuxuu kugu fiican and kan ugu dambaysaa labada go'aan aad gaaraysaa waa inay noloshaada ka mid yihiin oo habitkooda iyo dabcigooda iyo existencegooda aad garan kartaa waxaan ilaahay ka baryaa subxaana wa tacaala inuu noo fududeeyaay inaan fahanaa guushu cidna lama dhalan laakiin guushu waa guntasho aad u guntanaysaa inaad gaarta gabagabada goolka aad nolosha ka leedahay iyo meesha aad rabtaay inaad ka geedgoosataa fadlan message-kan hadduu ku anfacay la sheer garee dadka kale si uu dad badani u gaaro